هذا المركب أسود دقو شعالي مي أصوه هذا طريقة الأحمدية مقالة المركب اللي هذا يجو يجري طريقة دي أساسي مركب إيه حمر إيه إلاقو بلد دحلفتي كده ويقال أصونا وحو كملها نين إلهي أوليدي سوا وين كملها يوها نشيخو هذا جوغا ورقي مقالة المقدشة جو جرى كملها وليبا الرقم مشهور كاي مقالة المقدشة الوية قامي كملها مدد يرو لحظة سنة حتى يستنكبضنا يرقي كتبها كو أخرينها يكملها هذا النور صنة كيف تقاشنا المرهية أبيهيس وكملها تلاميذ شعر ميه وليبا أبيه وداري أسوأ شيء بأهبو داري أبيه وحيري أو يوشيكي وحيري أباهي مركب شعر ميه يشلخوه إسكشيكي وأبوي جريبوي بما واسكبوي جري مركب لبدا صوقات وحيري ويري أنه وحيري مقالة مركب شوقنا شعر ما حفظ كاملها باشلخوه يسيمد بوي شعر ميه ماشي ويمد بوي wuxuu markuu yimid buu yiri labadoodii waxay bilaabeen buu yiri dadkii inay wacdiyaan meel walba waa laga yimid bituulooyinkii marka wuxuu yiri mid walba markuu wacdiga la istaago markuu daalo oo fariiso midka kala qaato yiri labadoodii markaas wuxuu yiri inta tuulooyinkii iyo caradii dhammaan laga yimid magaalada wuxuu yiri musqulaheedii dadkii ma qaadaan buu markii la maqlay shuhooyisba meeshii yimid oo shacab mayada meesha ugu yimid meel walba isaga yimid buu إلى أسبوع يكبرن بيدتك وعدنا هي أنت وحوي دتك بيقولوا تودي بيقولين هي إلهي تقولي سبي وشيء هي وتربيين هي مركا كبعدي وحوش علي ما يدتك يكون يري شهويس برا ورها وشهود لا وأكره برا وهاي موت وعلى صالح بينهم بالملاهي مركا وحلا رباب ويري سجال رجع حفتي إنها كملوا عن شيخ كبره ayaa la rabaa ilaa baraa uu raaca waagaara nimankan tunida la yiraahdo oo Sheekh Ways inuu ka dhashay lagu sheego niman dadka laayay ahay dadkan qawaayilada hadda loo yaqaan qawaayilada miskiina loo yaqaan qawaayiladan Soomaaliyeed oo qaarkood hadda maanta la yiraahdo waa balaayo waa hubaysan heerkaasi adduunyadu waa isbedeshay moogta niman dagaaliyahana oo waliba qawaayilo badan hadda ila afka ku dhuftaan doonayno maanta in xoog leeyahay loo yaqaano ayay weerari jireen oo layn jireen oo weerar ku qaadi jireen oo deegaanka deganaa marka ragga sheekhu uu ku darahayo rag xataa qawaayilada u dhashay baa ku jira walaadka laftigiisu kamid buu ahaa oo hadda dhalay muxuu ahaa sheekha aan sheegayo marka قبائلدي مركا دغنا uu kamid ah walow kuwa tirada badan markaas ay qabiilkiisu aan u ahayn xilligan dab lagu yaqaanay dagaalyahay laakiin dadka meelaha degan bay kamid ahaayeen marka sheekha markii uu yiri sheekha raac la sheekha asaga marag waa la socdeen inuu marka wuxuu rabaa xig sare ka mid ay sagootiyaan ilaa baraawo wala la lugeynaya markaas marka dagaal badan bay sameeyaan شيخ مركب وحيدي مركب عن وحيدي وحا خرسان بوي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار آيات آخرين أنا برقلوين كاسبك يلقى الشيء وهو أبها يدي شيخ أسبرك أي شيء وأنا الشيخ هذا النوع معروفة غير على غاركي بينات قلتين مركب أنا هذا واحد دينه يا بلايا هذا وضعك يشوفتهم يقول عرني وشوقي مركا واحد مركا شدة وهو يري مركا الشيخ يفعني بالشهويس نباتا على كل النوع يسدافه مركا وحي حوغا صعنبا واحد aragna bi geed goglan oo bushureedkii la keenay ilaa tunidii baa inta maqashay shaqooys baa soo socda bay meel walba waxay soo diyaarada khabarkii uu gudbiyay ilaa la yaqaan waxa uu gudbiyay markaa wuxuu yiri abaar socdo waxaan aragnaa buu yiri geed ayagoo fadhiyo gogoli ay diyaarto bushureed iyo digirtii wixii dhamaayeen waxay diyaariyeen saasan ku gudubnay buu ilaa baraawo marka aan tagno sheekhu markuu baraawo tagay ورجع حتى أقول كويري ما لها أنا وأسكت خطر إلا نوانك هذا شيخ فضل كيسان وسوق قدوم اسمه الله يقرأ وحويري دوم بعد إذا صار هيا أبوي وأتكو تختار مركا كيف كهمر مير لأني بدي ديمي ما عنده يوم سيد شيخ ذاك دي ديمي أنتي كلامك شيخ أبي وكمل هواي يلين ودونتي ويفورين
labadii waxay sheekh maya waxba doo ku fali mayne baraawo iyo marka waxba iskuma jiraane habeennimaan waxay yidhaahdeen inta iska dheelmanno dadkaas carrada kharibaana arki mahayaane ayaa subaxnimadii waxaan gelaynaa magaalada marka sheekh waa ka tala diideen marka wuxuu aabahay oran jiray buu yidhi awliye ishaarooda lama diidi uu yidhi nimankii waxay intay nin kale doontaan raacna way soo lugeeyeen waagu markuu baryahayo gooray marka xeebteedii marhayaan baa kuwaanoo habeenkii oo dhan raadinahaya agteeda ay marhay waxay laayaan bay xeebtii ka heleen buyi meeshaasay ku dileen buyi labadii wadaad marka waa un marka aafaa marka hadde culummadii sidaasay marka ahaayeen dadka aada maqlaysaan dad ayagu isjecel oo ilaahay awliyadiisa ah oo midkood midka kale markuu u yimaado u jaarinhayo oo kulligoodba waxyaalo khawaariqul caadaada maanta haddii hadda aan ka sheekayno wax la koobi kara ma ah kutubaa lagu qoray hadda markii la eega sheekh cabdiraxmaan celi jawharunafiis waa kan alifay oo ku alifay inuu sheekha qasaa'idiisi iyo manaaqibtii shuqaysu ka warramo kitaab kaloo asaguna jalaailul caynayn fii manaaqibi sheekhayn uu sidaa magiisu ahaa waan hayn jiray hadda ka hor waan arkay ayadana wuxuu si toosa uga warramayaa sheekh cabdiraxmaan zaylaci iyo sheekh Uways manaaqibtoodii iyo karaamaadkoodii oo mid walba meelaha 50 karaamay wax ka badan uu ku soo qaadayo sheekh cabdiraxmaan suufi sidaasoo kale karaamaad aad iyo aad u badan ayuu lahaa sidoo kale haddee sheekh cabdiraxmaan zaylaci sheekh Uways sheekh cali maye sheekh Uways haddii koonfurta haddii la eego aad buu mashhuur ugu ahaayo mashhuur buu ugu noqday dariiqadiisuna si weynan badan bay u faaftay haddii la eego xagga cimriga raggan anugu ma aqaan sheekh cali maye laakiin asagana waa laga yaabaa inuu ka fil weynaa laakiin labadan sheekh cabdiraxmaan way ka weynaayeen markii xagga geerida la eego sheekh cabdiraxmaan suufi oo isku waqti dhawaaye oo labadooda taariikh ahaan markii hijradu ay ahayd 1420 sano gadaasheedii bay geeriyoodeen weliba dhowr sanuu ka dambeeyey markii la eego geerida sheekh Uways cabdiraxmaan suufi uu ka dambeeyey marka casriga dahabiga bay nimankaas soo mareen casri cajiiba ayuu ahaa karaamaadkooda hadda lagama sheekayn karo caa waqti looma hayne laakiin ilaahay hanugu anfaco ilaahay awliyadiisi bay ahaayeen ilaahay gadaashooda nama fidneeyo wixii khayr oo ay la yimaadeenna allah ka abaalmariyo darajaadkooda darajaad caaliya allah ka dhigo annagana maxabadooda allaha nagu liibaado kollayba hadda waqtigan dambo hadda aan joogno dadka saalixiinta ah raadkoodii ma hayne laakiin waxaan haynaa waa maxabadoodii nabigu calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi almar'u maca man axabba yowma alqiyaama qofku maalinta qiyaama wuxuu la jirahayaa qofka uu jecel yahay uu maalinta qiyaama la jiraa sidaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka maxabadooda allaha nagu liibaano micigoodana jannada allaha nagu soo shiriyo dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna annaha dhaafo aquulu qawlii haadaa wa astaqfirullah lii walakum wasalaamu calaykum ربنا